dhammaantoodba waa wax ku cusub ciyaaraha imika ciyaar kasta oo imika habluhu ciyaaraan dadkii hormoodka ka ahaa bay ahaayeen aanu bilownay 20 sano ka hor 23 sano ka hor waxaan ahaa ciyaartooy ay soo gacan qaban jirtay soksa hooyooyinka halkan aad ka aragtaan barisamaadkii waxay ka soo ciyaarayeen ciyaartooygii gobolkan Maroodijeex magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa maanta waxaa laga daafuray tartanka ciyaarta kubadda gacanta kuwaas oo ciyaarayeen haween dhalinyaro munaasabaddan daafurka ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimayaal iyo waliba mas'uuliyiin kale ugu horreyn waxa halkaasi ka hadashay oo iyadu faahfaahin ka bixisay tartankani kubadda gacanta gudoomiyaha xiriirka kubadda gacanta Marwo Foosiya waxa farxadna inaanu intaanu isku tashanaan nuri waxaan furaynaa ciyaarta inta ka maqnayd wadanka inaanu dib u soo celino oo ay dib uga balaabanto farxad bay ahaan boosha farxad bay wasiirnoota inaad nagala soo qayb gasho iyadoo maanta ay ugu horeyso maalintii u horeysay halkan laga furo waanu mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasho intaasi kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay agaasimayaashii mas'uuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay daafurkani tartankani waa tartan qiimo badan intii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha loo magacaabay dhalinyarada cusub ee hogaaminayo mudane Axmed Yaasiin wasiirka dhalinyarada ciyaaruhu waxa lagu soo kordhiyay xiriirada kala duwan oo 14 xiriir kor u dhaafaya mid walibana insha Allah maanta kii u dambeeyay activity-giisa amba ciyaarihii uu qaban lahaa maanta la qabanayo haday tahay feerka haday tahay basketka haday tahay feerka haday tahay handballsha haday tahay dabaasha haday tahay insha Allah xiriirada kala duwan dhan foolida dhammaantoodba waa wax ku cusub ciyaaraha imika maadaama aynu awal hore ku mashquulsaneen kubadda cagta iyo basketka iyo orodka in xiriirada kale iyo ciyaaraha kale la dhiirigeliyo waxa ay tahay hal abuurkooda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasiirku hogaaminayo aad iyo aad baa wasiirku hogaaminaya waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in wasiirku nagala soo qayb galay ciyaartan ama xidhiidhkan oo ah xidhiidh 37 sano ka hor jiray oo laga ciyaari jiray halkan Hargeysa iyo goboladeedaba maantana ay noqotay nasiib inuu u yeeshay wasiir Axmed Yaasiin inuu noo daafuro oo aan noo bilaabo oo aanu ka mid noqono xidhiidhada intii uu joogay ku soo kordhay waxa kale oo xusud midan xidhiidhada kale oo dhani waxa weeyaan waa rag ayaa hogaaminaya laakiin imika xidhiidhkani handballsha waxa weeyaan waa dumarkii hore u ciyaari jiray ayaa maxay tolay aasaasay oo yiri waa inaan soo nooleynaa kubadda gacanta ee handballsha la yiraahdo afka qalaad taasi farxad weyn bay noo tahay sidoo kale ma aha hablahani ma aha inay kubaddan oo kaliya aasaaseen ciyaar kasta oo imika habluhu ciyaaraan dadkii hormoodka ka ahaa bay ahaayeen aanu bilownay ay noqotay inaanu kaalintii habluhu ay ku lahaayeen dhinaca sportiga inaanu anaguna dhinacayaga aan ka galno oo aan maaragtay soo aanu qabano aan diyaarino oo ka hawl galno sidii aan maaragtay aan u dhiirigelin lahayn hablaha oo uga qayb qaadan lahayn dhinaca sportiga waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oon arko 30 sano hablihii ciyaari jiray oo soo nooleeya hablihii yaraa maanta teenage 16 jirka inay ciyaaraan ama chance ay siiyaan fursad fiican ay ku ciyaaraan aad baan hablahaas ugu hambalyeynaya iyagoo wax weyn soo kordhiyay waxa kale oo hambalyeynaya wasiirka oo wasiirkii ugu dhalinyaraha ee wasaaraddan yimaada maantana dacfuraya hablihii ciyaari jiray inay hablihii uu iska yarab taago xiriirka handballsha si habluhu ay uga qayb galaan ciyaaraha Soomaaliland aad baan Axmed Yaasiin leenahay waa hambalyo waa taariikhduna way isqoraysaa oo meel bay ku xusantahay qof kasta wuxuu qabtay dalka meel bay ku xusan yihiin waxaan soo gabagabeynay tartankii orodada oo habla ka qayb galayeen 5 kiiloomitir maantana waxaan daafuranaa tartanka handballsha oo runtii isaguna ah tartankii saddexaad oo qaasa hablaha ahmiyad weyn
u leeyihiin sportska iyo inay jimicsadaan oo ka qayb galaan tartanada noocana xaqna ay u leeyihiin maamooyinkii oo runtii soo qabanqaabiyeyna aad baan ugu hambalyeynayaa aniga si khaasa Khadra Khaliil iyo sogsade xasuus bay igu leedahayo dhowr iyo 20 sano ka hor 23 sano ka hor waxaan ahaa ciyaartooy ay soo gacan qaban jirtay sogsa kuna ciyaari jiray magaceeda isagoo uu tababaro waqtigaan oo ahaa Yusuf Nuux oo imika wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadra muddooyinka intaa leeg waxay ku dhex jirtay sportsko ay gacan qaban jirtay rag iyo dumarba xaruntanna ahayd xarunta ugu weyn ee si khaasa waliba hablaha ay ugu training gareyn jirtay iyadoo ay baaskeet u qaban jirtay iyadoo orodada u qaban jirtay iyadoo handball u qabanaysa imika gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaan halkan ku daafuraynaa tartankii handball ama kubadda gacanta kulley hooyooyinka halkan aad ka aragtaan bariisamaadkii waxay ka soo ciyaarayeen ciyaartooygii gobolkan Maroodijeex waa hooyooyin tacab badan soo geliyay ciyaarahan kala duwan waxaan uga mahad celinaynaa maanta qabanqaabada iyo dardargelinta ay la yimaadeen xidhiidhkan maanta aan kubaddan gacanta ama handball furayno ama andaha furayno oo dhowr iyo 30 sano ka maqnaa waddanka 38 sano filaya ka maqnaa maanta ay bilow tahay aad iyo aad baan hooyooyinka uga mahad celinayaa waayo qarankan tacab badan bay soo geliyeen dadaal badan bay soo geliyeen waliba xagga haweenka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa annaguna waxaan rajaynaynaa insha Allah tacabka ay soo geliyeen inuuna khasaarin inaan halka ka sii qaadno insha Allah annagoo kaashanayna ciyaartooyda waqti badan ku soo jiray ciyaaraha ee haweenka annagoo kaashanayna annaguna waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano khibradda iyo aqoonta ay u leeyihiin ciyaaraha ka wasaarad ahaan ka dhalinyar ahaan ka haween ahaan intaba haddii la yiraahdo waan uga faa'iideynaynaa rag iyo haweenba aad iyo aad baan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad xidhiidhkan maanta ku soo biiray xidhiidh 13 xidhiidh 14 buu ku noqonayaa haddii la yiraahdo isaguna xidhiidh dhaqaaqo oo caalami noqon doona insha Allah shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay